maama qadan oo u diyaarisay xaflad qurux badan boqorada isteelka. Xafladaasi oo ah macsalaameyn qadan qaran waa hooyo Soomaaliyeed oo gabadh ay haasaa wadaag yihiin wiilkeeda u dhigayso xaflad maasha Allah, xaflad aad u weyn ayadoo u muujinayso booskii hooyanimo sida ay rajaynayso maalin inay wadaagaan wiilkeeda iyo gabadhaani gurigoodana uu noqdo mid barwaaqooba insha Allah. waan u rajaynaynaa hooyada waxay muujinaysaa farxad aad u weyn iyo gabadha familku waa famil wada faraxsan waxayna ku faraxsan yihiin wada kulankooda. saasita hooyada waxay u dhigaysaa xaflad weyn ay ku macsalaameynayso gabadha. waxay sameysay dadaal weyn, waxay safar u gashay si ula kulanto familka wiilka ay u barato. iyadana waxaan leeyahay waa gabar wanaagsan muuqaal ahaan inta kale hadda ma garanayno laakiin inta ay soo bandhigeen maasha Allah waa famil isku fiican oo faraxsan. waxaan leeyahay guuleysta oo horumara boqorada isteelka. ayadana waxaan leeyahay waxaad muujisay wanaag badan, gabdho badan waxyaabo aysan hore u muujinin ayaad muujisay. sidoo kale maama qadar waxaan leeyahay ayadana hambalyo sida qiirada leh ama waxaa waaye muuqaalka ay noogu soo gudbisay booskii hooyanimo gabadheeda inay rajaynayso inay maalin u buuxiso insha Allah. Soomaalinimadu ma ahan wax yar, waxay muujisay dareen weyn oo ay ku muujinayso xitaa Soomaalinimo ayadoona fuquuqi waxba aanan sameyneynin. waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin intii xafladan qaban qaabisay dareenka leh gabadha kusoo dhaweysay. inkastoo aniga maanta xiriir kale igala dhaxeyn oo ahayn boqorada isteelka qof qaraabadeyda ah laakiin dareenkii iyo farxadii ay soo jiidatay. waxaana leeyahay maamada iyo gabadheeda iyo wiilka waxaan u rajaynayaa inay maalin riyadooda u hirgasho haddii xagga alle ugu qoran tahay ayna noqdaan famil wada qaata farxad badan insha Allah. bal ila daawada xafladani cajiibka ah iyo sidii ay u dhacday inta dhiman fiidiyaha waad ila daawanaysiin insha Allah. waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantiin idinkana. Soomaali ha noolaato, Soomaali ha midowdo, meel walba joogto boqorada isteelka. adigana guul baan ku rajaynayaa. maamadan waxaan leeyahay ayadana sidoo kale waxaan u rajaynayaa inay maamadeeda maalin u noqon doonto u buuxinaysa booskeeda insha Allah.